Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatu walaaleyga qaaliga ah meel kasta adduunka ay ka joogtiin kusoo dhawaada mar kale video cusub insha allahu tacaala waxaan kuu rajeynaa meel kasta aad joogtid inaad nabad qabtiin intii xanuunsan ilaahay noo caafiyo intii naga dhimatay ilaahay subxaana watacaala jannadii macaanid allah geeyo waxaan rabaa inaad la qaybsado sheeko kaloo yar oo ku saabsan fooshi aada ugu soo hesheen waa arkay haddii aadin sheeko noocaas oo kale haysad waa igu soo diri kartaa luuqa insha allah saa asxaabta aan la wadaagno أنا شيكوين كاسوا سايدين شيء أنا جوان جعل شيكوين أو فوشة مركا مدنا إذا لو ذاك يا شيكة رنتي وحوا شيكة هو أصاب بندق معهن بدنا بسكوت إجيهن هالعنق لب هالعنق كلا كيو عنق أفراد واي very interesting واي أنا عنق أفر عنق يمجوج الحمد لله أنتي جوت أنا نود داف لكن very interesting واي العنق كستبو فوش يسسجوني وكو قطع عنق فوش عنق كلا مدي هرتو مجرتو ama 10 haysatida ama 2 haysatida fool kasto waxay leedahay qaab iyad u gooniyo wadataa fooshi gabadhan hadda ay wada waxa waaye canugii afraad waaye waxay tiri waxaan galay tiri bishii 9aad lagu talgalay ima dhamaanay tiri bishii 9aad sideedadan dhameey bishii 9aad laba maalin ay ka qabaahay tiri waxay tiri markii wax iima soo dhaw waxaan sahay tiri soo ma dhawo marka waxay tiri maalin sabti aheed ay tiri ilmaha iskuul ima jirin waxay tiri odayga shaqo ma jirin guriga la wada joogay dhahday بس وحان سمية تري واسك سريرت اسك جيب تري أضاقي المها وحي تري قراع سيسينا وحان مقلي تري قبي قرع عضو جي كذا كان مقلي وحي تري وحان عد ما انت قراع اسمي سو سامية بس وصوكع تري مسخوشة قال مسخوشة مكاسة أفليشتي أوحقو ينصوت داتي تري مكاسة نيد إيجا صرع تهو بيه ما صوبا حد محيهن طلو أسدهير هذا أدر حاستا إيجاتك مجو وحكوكو مسو جوغ بل يقود من ويراني دام لا بلي أكا قبت سقالات waa iska soo baxay waxay tiri xaas dheed tiri qolka ku noqo dhar iyo wax soo gashay oo quraacad waa soo baxay tiri qolka soo galay tiri dharka marka soo gushto soo socods dhahay haddana waxay tiri falalax kale yaa ilaahay rasuulkiisa qaano bi kala yimid ma hohe jikada imaadey tiri waxba cid ka man ilmiyay warrooyin tiri oo 12 jir waay tiri waxa intaas ay 9 jir 12 jir iyo 13 jir waay tiri mararona ay joogo marka waxay tiri waxaa soo galay tiri jikada tartiib waxaa u dhahay tiri hay xaaji maanta biyihii waa daatay waxaa umaleeha inaan isbitaalka aadeyno maka waana tartiib u dhahay tiri haddii kale wuu isku naxaa ilmihiin waa isku naxaaya asana tartiib wuxuu yiri hasmi hay wuxuu yiri qolada oo isbitaalka oo umulisada wuxuu yiri waayahay oo dhaliinka lagu dhalo hayay tiri waa wacday bis markaas waxaa la joogaa hay tiri 2 saac subaxnimo iyo 2 saac bar meelahaas la joogaa tiri وعي waxay dhaheen tiri balna lagu dhiga gaabta 12 saac imo waa hadii asan 12 saac ka soko oo xanuun oo dhabdhab ah oo soo qaban oo joogo amba biyaha ka socdo hadii kalarkooda isbedelaan biyaha hadii kalarkooda isbedelaan ash ma aha problem ma jiro marka waxay dhaheen biyaha hadii biyo caadi iska yihiin caadi laakiin biyaha waxay dhaheen hadii oo isbedelay kalarkooda isbedelay hadii xanuun oo dhabdhab ah ku qabto iyo waxaana soo wiceysaa hay dhaheen haddii aad nuxnuxsiga cunuga aaweysid oo caloosha dhan ee ka taagmato nuxnuxsi aysan jirin saddexdaasba haddii dhacdo waa waxay dhaheen waa imaaneysaa haddaysan dhicin 12 saac galabnimo imoo balan waa lagu baarayay xaaladda cunugii waxaa la fiirinaa intaa furantay waxyaasa la fiirinahay hayee tiri bas waa quraacnay tiri marka quraacnay xanuun yar ay qabtay tiri been oo khafiif ah laakiin aan darnayn بس xanuunkii markuu qabtay odayga wuxuu dhahay ilmaha wadaaya maadaama hadda biyi isaas socdaan oo aniga waxa laga yaabaa 2 maalin gudaheed inuu cunug ku dhasho oo ku imaado marka wuxuu dhahay ilmaha wadaaya waxaan geena magaaladan geena hooyo wuxuu raana u soo gadgadaya waa kaas aadana siinaso maadaama galabta 12 saac isbitaalka ku balansan yihiin haddana waa subax waaye marka isbitaalka dhalinka oo tihiin 12 saac oo furay 24 saac oo furay maalin kasto maalin xuriya ma jirto بس مالك سبتي هاد المي بحا أضيع وحو وذا مجالده وذا وحتى وحو سو قد قذا يتر على بير إسقف فرحان مدام حالات الجوج بدلا يو بيفير وجروبي ما نايو لقيا أو بالمهنة تركوا الدوين حتى مستري لأسك جلا أضيع هرت مشغولة ما أذكر عدان كاس أوكتين وأنا وين قصور بدي سد حتى ونجر كان أنا خوشت نقول نقبة هابا مركب حتى مركب بحان شخص عمل مرة هذا بحان أو حتى تمها إسك السماء أسدي تمها waxaa sameysay tiri afar tada camal ka dhigo bas timi ana iska habeesaha waxay tiri gabar saxtay soo wacda gabar saxtay la hadlay xaaladii u sheegay tiri xaalada marka u sheegay tiri inta la hadlay laba xanuun ay qabto dhab iyo dhab alle kala si
waxay tiri walaalay waxa u maleeyaa tiri koo toban sac intaa la gaarin isbitaalka aadaysiin maadaama koo toban sac loo qabtay ka sokonaa bixiisa ka baqaahay tiri bis waa ismac salaameynay tiri xaaladda waxay tiri 6 saac camal ay maraysaa tiri 6 saac markay maraysay tiri oo xanuunka dheeryaha kala dheeryaha laakiin la qabahayo oo xanuun ihaayo odagayga imaaday tiri baak markuu soo galo haddana xanuunka la qabtay tiri bis meel meeshii soo taagnaa darbi camal ay qabsaday tiri wuxuu yiri walaalay xanuunaba ku hay ma baxnaa may caadi way tiri xanuunkayga ma darno bis waxay tiri markuu magaalada ay kasoo dhamaadeen McDonald noo soo mariyay tiri meel McDonald oo taqaaniin meel yaro hamburger iyo wax lagu gadgado waaye cuntooyinka take away-ga hamburgerka odayga markuu keenay waxay tiri hamburgerkii aska cunay 8 saac markii la gaaray as diyaarinay tiri xanuunka la qabtay laakiin waa iska xanuunka laakiin ma darnay tiri xanuun daran ma aha bis waxay tiri 8 saac markii la gaaray isbitaalka waxaan dhahnay tiri waa soo bixinaa anaga ku toos am soo furna maadaama xanuun hadda intii la joogay masaaka marka ay soo wacay tiri 3 saac ilaa hadda dhowr xanuun ay qabtay dad hay bis imaaba la yiri waa dib malahane bis waa imaaday markay imaaday 8 saac bar imaanay tiri baawara wadan 8 saac bar marka imaanay tiri oo la fiiriyay tiri gabar harta oo mulsa meesha ka shaqeysa asna qaana waxay tiri laakiin iga furto oo hadda koof marka ilma dhalayeen aan meesha isku baranay bis mulsa fiican aheeday tiri waa soo salaantay tiri soo dhawaabay tiri bis qola leegeeyay tiri cunuga la baaray wadnihiis wixiis okay way ana la baaray wax shana furunta la yiri abay meel oo socotid malaha dharka dhigo macna qalabkaaga dhigo guriga mu naqanaysidee bes odaygi waxay dhahdeen ma ku talagal aniga waxa wacnay tiri ninkay hooyadiisa wacnay maamada waxaan dhahnay tiri boorsada dharka waa loo diyaarsan yahay oo boorsada waxa lahaa baby veska allah meesha waa boorsada oo mursada loo qaato waaye meesha talka oo dhalaanka loo qaato waaye waxa ku jiro hadda kor waa ka soo sheekay maxaa u baahan tahay in isbitaalka u qaadato xilliga foosha waa ka soo sheekay I hope in videogaas gadaa ugu noqotaan oo soo dhageysataan marka wixii u baahnaa soo qaadato isbitaalka marka loo keenay iyada waxay tiri meesheedii joogay tiri waxay dhahday 9 saac camal la maraahay tiri waa lay fiirshay tiri dan saacad kadib aan xanuunka ihaa dhadhab isihaa geedku waxa qabsay tiri marka gaaska la dhuuqay xitir afka igu jiro bis waxay tiri cirbada dhabarka waxay tiri ma rabin bina laanta dolar rabay dhahday markii lee bar hadan waxa la yiri 8 furunta zaid waxay tiri oo furitaankay waxay tiri dhaqso u yahay dhahday maadaama afar cunug hor u soo dhalay tiri fooshin wiligeed waxay tiri aan ciyo hore ka ahayd tiri fool oo saacado badan igu qaadahay ahaan jirin markii la baar waxay tiri oo cunugii waxay dhahday oo 7 afranta la yiri waxay tiri xoogaa xanuunka waxay tiri uu istray wuxuu noqday xanuun oo dhab 3 daqiiqo mid imaanayo noqday mataga imaada kadib matagana calaamadaha waxa lagu yaqaan markii cunugu uu kafka imaado waa runtii bes waxay tiri markii xaaladdaas marayso oo la fiiriyo waxa bale dhahay tiri walaalay waa wada furan tahay ixdiya ku dhimanay qaabkee rabtaa inay u dhashid meeshan qaab badan ma aqaan Soomaaliya wadankeena marka la joogo maadaama aan ilmo ku soo dhalin Soomaaliya qaabka loo dhalo ma aqaano laakiin meeshan dhowr qaab loo dhalaa oo hooyada loo istaajiyaa qaabkaas insha Allah maalin raba inaan ka marka hadda gabadhan waxa la qaabkee rabtaa inuu dhasho marka waxa rabaa hitir waxa rabaa sariirta waxay tiri sariirta marka waxa la sameeyaa sariirta caadi waa dheerta mugta sariirada meesha marka waxa jira sariiro oo saan loo soo qaluucinaa meesha madax barkinta la dhigahay asaa loo soo qaluuciyaa marka qofku fadhiisan karaa marka saan loo soo qaluuciyo meesha rabaa inaad doodka saarto fadhiisto waxay tiri sariirti ay ku jeestay tiri in habsiya ama sariirta aan noqdo tiri jilbaha dhulka dhigtay waxay dhahday 10 daqiiqo miya ay waxay tiri hal mar riixay tiri waxaaba dareemay inuu madax dhan fad soo yiri ahday subhanallah maxaa umaleysaan dadka qaar ilaahay subhanahu wa ta'ala oo saqiro dadna saacado ixdahayaan dadna fulul bab le waayba war gabarta ilaaha oo saqiro waxay tiri 10 daqiiqo miya waxay tiri ixsiya tiri madaxiya banaanka yimid tiri haddana markaas waxa la marka foosha meeshaan marka hooyada foolnayso maanta riixda mal rabo wariixa xanuunka markuu ku day ha leedahay waxa la dhahaa riixtaanka jooji xanuunka markuu qabto dadku way dareemayaan ma hooyo hooyada meel ay qabsay leedahay riix al dhahaa tani bis haddana markay riixdo haddana cunugu way arkayaan oo cunugu soo socahayo wadan xoogaa soo sikanaya marka waxa la yiraahday bismi aha waxa la yiraahday marka in hal mar riixid marka ugu xoogsan riixa leeyahay maadaama cunug madaxiis banaanka yimid marka qaar hal mar aan riixdo oo cunug fadta ku soo dhahaya marka waxa la weydiiyay waxa la yiraahday cunugina qabato martaa oo gacantaada qabato waxaana waa qabanahay tiri bis anoo cabsanaay waxay tiri hal mar aan riixay bof waxay tiri soo baxday gacanta ku qabtay tiri murug wax dhahay
بس إسلام مركو حتري عنوت وجبر هذا وين بلاد هذا مركو ما شاء الله تبارك الله وهم بليه إن جبر عن جد أفراد وجبر نقضي إذن كان ده شيء كويني نوع أساسين وحنا ذيك عصا إن إذا سوق بس هذا وجعلهم تشيء كوين كسانيجا وحي فكرة نهاس يقول ساقر آذان وما سنتاي فيديوجا سأو في سنة السلام عليكم.